booliiska deegaanada bari ee dalka Norway ayaa ku baxay fal la yaab iyo amakaag lahaa oo ka dhacay degmada Halden halkaasoo lagu soo waramayo in nin socda mid ka mid ah guryaha ku yaala xaafadaha degmada Halden banaankeeda uu soo eryaday ay ku jiray mid ka mid ah guryahaas waxaana lagu soo waramayaa ninka markii uu eygu soo weeraray inuu ula soo baxay toorey halkaasna uu eygii inta uu u fadhiistay tooreydii dardare ilaa ay eygu naftu ka baxdo waxaana lagu soo waramayaa ninkan sidoo kale tooreydii uu eygu dardarayay inuu isaguna isaga dhaawaco lugta waxaana boolisku ay gaareen goobtan lagu soo wargeliyay in ay tooreeynta ka dhacday taasoo loo geystay ay ka mid ah eeyaha ku nool xaafadda Halden ee dalka Norway waxaana la sheegayaa in ninkan oo dhaawac lugta ka qaba taasoo uu ka soo gaaray tooreydii uu isaguna isaga dhuftay lugta loo qaaday isbitaalka Kelsen halkaasoo hadda lagu dabiibayo xaaladiisa caafimaadna lagu maareynayo taliyaha howlgallada booliiska deegaanada bari ee dalka Norway Alta Vesterop ayaa ku waramayo in ninkan oo qaba dhaawac ka soo gaaray lugta ay goobta gaareen wuxuuna intaa ku darayaa in eyga soo weeraray ninkan uu midada dardaray ilaa uu eygu nafta waayo wuxuuna taliye Alta ku waramayaa in ninkan hadda loo soo qaaday isbitaalka Kalles halkaasoo hadda lagu dabiibayo xaaladiisa caafimaadna lagu daryeelayo isagoo sheegay in uu qabo dhaawac dhanka lugta ah ka soo gaaray dhacdadan ayuu boolisku sheegay in ay ka dhacday mid ka mid ah guryaha ku yaala degmada Halden halkaasoo ay ka mid ah eeyaha ku jira guryahaas uu soo weeraray ninkanna uu ula soo baxay tooreydiisii dhulkana inta u fadhiistay eygii dardaray tooreyda ilaa uu nafta ka qaado wuxuuna taliyuhu sheegay in ay hadda xiriir la sameynayaan milkiilaha eyga la dilay sidoo kalena ninkan hadda lagu dabiibayo isbitaalka Kalles halkaasoo caafimaadkiisa lagula soconayo waxa uuna sheegay in booliiska dhacdadan tooreynta ah lagu soo wargeliyay iyaga oo markii ay heleen warbixintan sidoo kalena uu soo wacay ninkan dhaawaca ah ee eyga dardaray tooreyda naftana kaga qaaday wuxuuna sheegay in ay meesha ugu tageen ninkan oo dhaawaca iyo eyga oo meyd ah wuxuuna sheegay in hadda ninkan lagu dabiibayo baaritaanna ay ku hayaan kiiskan sida uu u dhacay iyo sidoo kale saameynta ay ku yeelan karto ninka eyga lahaa ee eyga laga dilay waxa ayna dhacdadan ka mid noqotay dhacdooyinka yaabka iyo makaagale ee ka dhaca degmada Halden ee dalka Norway halka warka kiisa ugu door karoon uu idinkaga imaanayo waa Somali Voice Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway waxaan idinla socodsiinayay aniga oo ah Cabdulaahi Shiine